السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا channelkayga Munaas oo walaashiin Munaas xabteed saytiin fiicantiin wana salaami meel badan yada ku joogtiin kusoo dhawaada muuqaal cusub maanta muuqaalka aniga wada waxa waaye ana daily routinekeena bacda Ramadaan ku dhamaad ka bacda ciid dhamaad ka bacda routinekeena ugu horeey aan soo duubay waa insha Allah waxaan rajaynayaa inaan ka heshiin routinekan wuxuu ku saabsan yahay ana noolkii Ramadaanka ciidii alaabta ciidii waxa soo dhan ayaa meel iska dhigaya soo ana insha Allah waxa subsado waxay ahayd boxka haystaa boxkana meel kulida ka bacda qoolku waa badan hal meel iska dhigtaa waay marka boxka waxa aragna inaan gashano alaabtii ciidii Ramadaanka nalalka waxyaalaha dhan aan haysano intii noo deeqay insha Allah sidii oo sanadka dambe Ilaahay gaarsiin aan u isticmaalno soo marka ma sha Allah macal barkimaha kullu dhan waxa lagu ridaa hado markii la gaaro meel oo fudud u yaalo soo qaadanaa waay soo marka ma sha Allah soo dhawaada asxaabteyda farasta routine bacda Ramadaan isku soo laawasho wacan videoyaasha noo share gareen noo comment gareen noo like gareen insha Allah intaas oo dhan waxaan ugu dhiirigelnaa more video inaan soo suubiyo oo inaan soo bandhigo insha Allah soo hadii aad ka heshiin oo ka heshaan like noo saar adoo daawanaysid soo marka ma sha Allah meeshaan normal waxa waaye hadii channelkay ku cusub tahay ana maxal lahaay normal video waa suubiya routine ku saabsan inshallah maybe exercise weight loss which hadda aan ku jiro saacadaysi waxa sayt inshallah naga share gareynaa more so hadii aad jeceshahay kind of videos and maxaa dhiirigelin ay ku tahay inshallah oo cusub tahana la aan video-guna subscribe gareen inshallah also waxa rabaa inaan soo biyo sitan video oo Q&A inay soo weydiisiin su'aalo maxaa jeclaan lahayd inay soo weydiisiin ayno dad badan ay xiran maxaa rabtiin inaad ku ogaatiin Muna waxyaalaha sita hadii aad rabtiin video naga soo suubinaa inshallah ana comment ku soo qoro what would you like ina ana iga ogaatiin oo iga baratiin waxyaalaha sita inshallah and then video naga soo suubinaa laba goor hadii aad soo qorin inshallah ina laga yaabo videogas ina soo suubiyo because channelka dad badan ku soo darsameen 4000 iyo marooya so dadkaas waxaan rabaa inay bartaan qofkaan ahay iyo maxaa lahaay reason oo waxa suubino bad laakiin hadii oo su'aalo aad qabtiin intaas waxay iga caawinaysaa videoga ina ciyooniso suubiyo oo oo isla markaa ay heshiin soo marka hadii video maxaa la su'aalo aad qabtiin commentiga igu soo qoro insha Allah waxaan rajaynaa su'aalo badan inay igu soo qortiin oo sidii oo niga soo jawaab like Q&A sit down on suubinaya dila yiraahdo so as usual maanta daily routine keena ana hadii aan video soo post gareyn xitaa guriga maalin kasta shaqo ka qabtaa so maanta waxa routine keena maalinta Sabtiga waay maalinta Sabtiga waxyaalo badan aan qabtaa jimcadii waxa waaye gogosha sariiraha amriyash ka badala Sabtiga waxa wixii tirtiro wixii bus waxa soo dhan suubiya shaqada sideedaba ina jadwal u lahaatid waay waa ina routine lagu sheegaa jadwal waay wax walba maalin substitute waay hal maal hadii dhahdo gurigan weyn wala suubina adoo feeraha ku xanuunay soo marka waxa maalinba meel ina substitute waay maalinba meel ina substitute waay gur special aan gurigeena bus waay na only guriga most of the houses bus badan ay haystaan soo busta badan maxaa lahaay waxa u suubini kartaa maalin jadwal u suubsani kartaa oo kaligeeda meel aad suubini kartaa soo hadda inta ujeedin waxa waay nalalkii oo nalalka maana ciid mubaarak nalkii ka dijinooya waxaan leeyahay ma salaama see you next time aduu leeyahay cimri dheer iyo caafimaad anagu qabno ciid kala iyo soon kala Ilaahay na tuso insha Allah Allahumma amiin soo hadda inta waxa waay quraamadan oo darbiga ugu dhagsan busay noqdaan ana busto markay noqdaan quruxdooda soo baxayso marka waxaan suubiyaa water tira okay koranka tira waa nadiifina dadse soo wixii oo ciidii Ramadaan wixii busto tiro intaas la qaybsado soo baxnay soo inta waxa waaye maalinta Sabtiga gabdhahayga dharkooda oo dhaqanaay oo ku dhex jiray in qaanada laga soo bixinaya because week isku dhex darsamaa ka bacda dharkii la laabanayaan soo ana ma la laabi sometimes oo la laaba laakiin hadda ayaga barooya mahano gabadheedii ugu maanta 7 sano jirtaa gabadheedii kan 5 sano jirtaa soo gabadheedii 7 sano jirto sariirtay soo saarnay dharkeeda Sabtiga qolkeeda iyada subsato sariirteeda waxeeda maxaa lahaay gabadhay kalna idana axadii soo bisa qolka maalinba qof soo biraa qolka samaanta dharkooda san u la laawino soo jeedin hadan teeda yiriista waa dharkeeda waa kaas rooti camal loo duduwana ana waxa loo matqaana rootiga asoo xitaa waa rabna madiideeno
wax lee laalaaban ku jiraa meeshaa gasho soo labadeeda xabo kow ee laabata gabadheeda 5 sano jirta saan waay maasha allah ilmaha ayagoo yar wax bara ilmahan wadankan joogan qurbaha joogan see wallaahi shaahooda sariirta in loo keeno jecel yihiin cuntadooda in loo keeno ay cunaan jecel yihiin afka xitaa ugu gelin karti afka hadii ugu gelin karti xitaa in ugu gelisida jecel yihiin soo marka maadaama ilmahan oo wadamadan joogan ay jecel yihiin manyacaas waa ina shaqo bartaa hadhow hadii gabar oo dhishid oo laga guursado oo shaqo ka sehnin hadhow ceeba ku keenay maahno marka aan waxaan ku jiraa horta before guur la gaarin ba ana bacaabitaan u baahnay shaqadiina qabsada so that's what I do is like nimo dharkiisu la laabanaya sidoo ahaadana ana ma correct gareynay koowa u sheegay maalmihii koo la laabay ayaga saas oo fududaatay bacdal waa barnaa si loo laabo actually oo la laabitaanka caadiga ah but right now wixii ayaga laabaan ay isticmaalayaan markii la laabaan waxana ma sha Allah qurux waa maanta wax fiican soo biseen gabadha markii saas oo laaban sticker-ka sirtooda ku dhigsanayaan ma fahanteen ilmahaanayta aqli wax loogu qabsadaa hadii kalmahan oo aday feeraha ka jibinayaan soo hadda ka soo tagnay meeshaas ma sha Allah inta jikadeeda waxaan lahayn nadiif waay shalay kala hagaaji video manigu duwan arano YouTube ka caajiso insha Allah arowanina ka caajiso is something that I like and asubi but laakiin I don't know I feel like ina caajisoyo and that's because the video mumkin kusoo daal wax fiirsanaa malaha insha Allah aan moora wadaya dulay yiraahdo soo hadda inta jikada ku jirnaa waxa tirtirooya cabinet-yaasha bahalkani dusay oo cabinet ku tira markii ku tirtid uu nuurina oo ka dhalaal uu yeela qurux uu yeela cabinet-ka shaleen korka dhaqay waa dhaqanya hadda maanta tirtiroo leeyahay siliid camal leeyahay bahalkaas wax yar biyo ku darsadaaday next time biyo ku daray kaligiisa oo ku tirtiraya okay hadda biyo ku daray but next time kaligiisa ku tirtiraya soo marka waa soo nadiifsanay cabinet-yaashan oo soo dhaqanay maxaa lahaay waxa rabnaa alaabta intii aan dhaqano insha Allah alaabtan bacdal qada waa routiinkan qadada waxa lagu cuno waxa soo dhan waay soo subax ma ahan duhuradii ahayd ma sha Allah tabarakallah jikadeedana nadiif ka dhigtay ma sha Allah hadda marka waxa waay intii on iska kala aruurna alaabaha marka hadda ma sha Allah tabarakallah jikadeeni oo nadiiftan oo aheeda korka tirtireena sidii oo maxaa lahaay on markale u tirtirin soo had soo jeedin jikada xoogoo waa kala habeeshalay alaabtana soo kala bixi waa tirtiray gudaheeda waxa dhan organize gareey so it's actually deep clean taaydo soo hadda xarawa insha Allah ina shumac yar aan shito shumacayaasha aad u jecelahay mar walba ma shito mar walba xashita ana essential oil ashita uga shumac badan ma jeceli laakiin laakiin markii oo saa wax nadiif ah iska shito okay soo hadda ma sha Allah tabarakallah waxa waay qadadii ana saxmaanta lagu cunay ana bahalka oo microwave-ka oo raashinka ku leenay alaabtii saxankiisa la dhaqaaya asagana ina gudaha laga nadiifiyo waa raashin lagu kuleysan karo waa ina deep cleaning loo suubiyo shaambo meeshaan ku dhacay soo baxda diidiyada afkaan ka furo because ina shaambo lagu soo waacago soo marka ma sha Allah tabarakallah maxaa lahaay inoo hadii hooy tahay waa ogtahay shaqada ma dhamaanayso laakiin shaqadaada waxa waay waa ina jadwal u lahaataa marka hadda aniga oo waxaan soo duuweyno oo waxaan soo gineyno waxa naga taa ina dhiirigino walaalaheeno gabdhaheeno Soomaaliyeed ina dhiirigino u suubino because aan hadii arka qof shaqeynayo ana waa ka xaqinka qaadaha waa shaqeynaa dadka saas ah ma fahanteen dad waxa jiraan oo dadka kale markii wax suubiyaan ay arkaa inay ay suubiyaan jecelyiin soo sidaas tahay hadda ma sha Allah gabdhaha Soomaalida waa soo bateen routine YouTube-ka ma sha Allah routine badan uu noqday soo maxaa qofkii adiga aad jeceshahay routiinkiis ina fiirsatid daawo haduu dhiirigelin ku siinaa qofkaas kac suubi waxa suubin kartid gurigaaga subso adigu isku mashquul nafsadaada waxa aad jeceshahay suubi don't like oo maxallaha dadka kala ku mashquul hadii hooyo tahay ilmaha ku mashquul guriga ku mashquul maxallaha nafsadaada ku mashquul waana sida nolosha sideeda hadii aad dadan ku mashquula dan aad means adiga noloshaada meel fiican ma maroosin faanteen soo aad isku mashquul Allah faarahanayto waxaad suubso waxa jeceshahay suubso laakiin dadka bilaadanka afaarahooda ka bax ma faanteen soo hadda marka ma sha Allah tabarakallah maxalla sinkiga nadiifinona intaasayt waxa waa kasto yar oo wax la sheegay waa maxalla damoro aday nafsadaada ku mashquulshid isdamor oo noloshaada oo si fiican u fiicnaato oo horumarna gaartid baay soo marka ma sha Allah sinkiga nadiifinona soo jeedin
alaabaha marka alaabaha ma jecli masuu karib intay ka qalayaan waxaan jeclahay inay oo markii saas u dhaqa inaa mara haysta marada aan ku qalajiyo ka bacdi oo meelahooda aan kala geliyo jikadana marabo inay alaab badan banaanka iyaasho waxaas dhan waa nacbanahay so marka maasha Allah tartiibteena alaabahayna xareysanayna waxayna oo qaljisanayna Amazon wax ka dalbada right taama imaadaan dhaya ilma ay keenan ana wax duubo imaado waa fiicantiina dhaw ku soo aadsan videoga so bahalkaana ka dalbaday bahalka waxa rabay ahayd ina since aan jikada aan kala haweey oo alaabta kala organizer gareeyo hadda more space isoo baxay kana dalbaday head raqiis oo hayno ana like more qurxan jeclaa ka bacdi saas candle-kayga waday waxa meesha u raadinaa laga bixi haya saaray andan waa imaaday maxaa lahay microwave-kii gudihiisa wasaq waay ila microwave ka raashin la lagu kuleysan karo you also have to maxaa lahay ina nadiifsid because meel nadiif leh wax ku kuleysan kartaa ma fahanteen so marka microwave-kii asagana dhinacana u wareejiyay awalkana geeska kale wahay anda maasha Allah waa tirtirooya waa nadiifinooya saxmaantiisa ku soo celiyay maasha Allah tabarakallah and that's it you know waxa waaye guri nadiif badan hooyada ayaa ku farxaysa waaye hadii uu guriga nadiif yahay nafsadaada nadiif ay tahay ya already Allah nadaafada waa qayb nolosha ka mid ah hadii laakiin wasaq ku dhex jirtid todo aad dhanba wasaqda waa dareemay so marka maasha Allah waa kaas abaya waxay soo weydiisay Snapchat-ka cunuga baraashinka cuntada aan siiyo sidee ugu bixiyaa bahalkan oo freezer-ka uu ku jiro so marka hadda inta la share gareenayo soo rileed waa bacdal cabaar aad week ugu ahayd soo weydiisay u jawaab Snapchat-ka laakiin waxa laga yaabaa dad oo ugu jiraan oo YouTube-ka inay curious yihiin ay fahmi la'ayiin marka raashinka inta ku showse ugu bixiyaa so hadda marka waa idinkan la share gareenayo laakiin ida already waa sheegay so marka waa inshallah inta waxa waaye maxaa lahaa biyo aan wax yar ku shubaa caagaaneta silicone waa silicone waa riixi kartaa waa riixa marka asxaabteeda caaga silicone waa caaga silicone marka uu yahay dawada saa ugu riixaysaa soo aragtay markii saan u riixo andan wuu soo baxaya easy waa wax adeeg badan maahan ka bacda markii uu kuleenayna si uu kuleystaan oo la soo dhahay ana biyaha digsiga ku soo karkarka koobkiisa uu dhaxridaa andan waa kulaana asaqan dacnaqna warm noqona qatar oo noqonaya so intaas la suubiyo wax weyn suubiyo insha Allah waxaan rajaynaa inaad fahanteen so hadda inta ma sha Allah tabarakallah waxa imaaday qolkii gabdhaha dharkii oo la laalaabay fiirno dharka waa la laabnaa li dhawayno sticker la sugooya so marka ma sha Allah waa kaas gabdheeda qaanadeeda waa saan oo la laabto suwaadeedo andan waa kana bahaladeedana saan oo la laabtay so marka ma sha Allah tabarakallah faraanada saan oo la laabteen marka waxa ma taqaana gabadha 5 sano jirta iyadana saan oo la laabtay at least hadii ay wax laaban karaan it does not matter all it matter is that inay wax ay try greenooyin haduu xun yahay kala ma kala jiro gabadheeda qaanadeeda waa xiratay u xiratay walaasheeda maruba dharka bixinaysa qaanada maray ku xiratay sawaada marada inaa ka furay noqotay iyadana saan oo la laabtay ma sha Allah tabarakallah wax fiican ay soo been I'm so proud of them you know so hadda inta imaana qolkan nalkay kaamirada waa shaqeyn waayay nalka aan haysto so waxa isticmaalaya natural light from the window isticmaalaya so qolka dhan marka bright uu noqdo too much light uu noqdo qolka Amir iyo baby oo gabadheeda kala waay so marka ma sha Allah waxa waay intii oo sariirtiisa waa ina googasha ka bedelo isbuuc kasta marada waa laga bedelaa waana loo tirtiraa sariirta busta iyo waxa laga nadiifiyaa arawa my boy inuu bus qaato fahanteen kan pinkiga asal ugu dhaxdeeda pinkigaas gabdhaha walaashiisa haasin jireen markuu ay yaraayeen waxa waaye dhaxanta markii jirto oo ilmaha markii ku ridid sleeping record kaas ku dhaxridid busti wax ma agligeysid so hadda waxaan dhahay mid blue ma soo gadi karaa my pinkigaas haysta guriga loo joogo ku dhaxrid haweenka ku seexdaa okay ina mar dhow buu ku yaraanaa wala iska xaneena so marka waxaan hadda qolkii nadiifinooya qolka gabadheeda sariirteeda nadiifinooya asiga waaye qolkan kastoo yar uu yar yahay alaab badan oo ku xareysantahay fahanteen bad ma sha Allah alxamdulillah sariirtiisa iyo sariirteeda iyo qaanadiisa dharka iyo qaanadeeda iyo kan xafaayada lagu bedelayo too much alaab I feel like it but inshallah markuu asweenaado kan xafaayada lagu bedelayo waa iska qaadaa hoos la iska geynaa markuu weenaado ma loo baahna maano markaas andan maxaa lahaay qolka space badan oo soobsamaya right now marka hadda waxa waaye ana baashan oo xafaayada lagu bedela qolkeyga oo ku jirtay laakiin hadda ana qolkeyga big makeover ku soo bi wax oo ilma leeyihiin dham ku jiraan hadda qolkeyga ma sha Allah sida aan raay waay sariir ma ku jiro wax ma ku jiro just like sidii aan raay waay so hadda inta ma sha Allah tabarakallah sariirtii maxaa lahaay
أنا أصوبنا واي أنا روجان كقاد وحاقي هاد وصودي وصوت كتير وصوحاقي عندنا ما شاء الله تبارك الله دات سائنا ولو نذيف يقول كوضو وحما كما قمي وحما كما قمي الحمد لله إلى محضلة أنا عافماد نسي أو محكوسو بسنة انتو حاروا أنا نلقيب صدا لبدا بري دايت كيلو وابدا أنا وحا عبويا سنجبيل caloosha marabtaa inay kaa yaraato sanjabiil karso sanjabiil waxa uu cabayaa shaah camal sokor ma ku darooy wax dhan ma ku darooy olna sanjabiil aan karkari maalintii 4 koob 5 koob meelahaas aan cabaa beemani sheegaa calooshay different ku arkay way different ku arkay insha Allah waa ku sii wadaaya soo sanjabiilki saan oo soo karkari ma sha Allah koob saaki cabe heerta koobkee labaad waa saan ku u karkaro ka bacda cab sanjabiilka daawo inside uu yahay gudahaada ana calooshan uu ka yareynaa caafimaad fiican oo ku jiro soo wax ma ku jiro hada waxa sanjabiilka la soo karkari ilaa wadaad say wax kale ma ku jiro soo insha Allah sanjabiilkana iska caawina muuqaalkeen intaan uu ka yahay like share subscribe comment